السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله waxaan doonayaa weli waxaan ka hadlayaa muuqaaladii ama waxaan idiin soo baahinayaa muuqaaladii ka hadlayay jannada waxaan doonayaa maanta inaan idinla wadaago waa tuma qof nabiga ugu horeeya jannada geli doona waa sidoo kale waa tuma ummadda ugu horeysa ummadaha iyo ummadda jannada ugu horgeli doonta sidoo kalena waxaan doonayaa inaan idinla wadaago waa kuma qofka ugu horeeya ummadda nabi maxamed ka mid ah ee jannada geli doona xadiis ka mid ah xadiis uu muslim kitaabkiisa ku warinayo wuxuu leeyahay nabi maxamed waxaa la keenayaa jannada albaabkeeda la keenaya wuxuu leeyahay nabi maxamed waxaa aniga lay keenayaa buu yiri jannadii albaabkeeda markaasaa wuxuu yiri waan qarqaraacaya mar alla markaan qarqaraaca ayaa malagii furaha jannada hayay ama askarigii baa wuxuu weydiinayaa buu yiri cidda aan ahay markaasuu oranaya aniga waxaan ahay maxamed صلى الله عليه وسلم مركز النبي محمد أرانيا مركز ملقي أرانيا هذيك يعني عيد كلام لي مفرين أما لي ما أمرين إن الباب كان كفره مع ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم هرتي عيد الله فري أما عيد الله أقل هذا إن كان هذا الله هرفرا النبي هرتي بجرو مع ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوي النبي أقهرية يا أنبياء إلهي كمل مركز جنة قريدون جنة أقهر قرية sidoo kale ummadaha caalamka ama ummadaha adduunka ka jira oo dhan ummadda ugu horeysay jannada geli doonta waa ummadda nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam waayo nebigii ugu sharafta badnaa weeye nebigii ugu dambeeyey weeye ambiyada ilaahay maca dalika ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku abaalmariyey abaalmarin aad iyo aad markaa u qiimo badan oo ah inuu noqdo nebiga ugu horeeya jannada geli doona inay sidoo kalena ummaddiisa noqoto ummadda ugu horeysa ee markaa jannada geli doonta sidoo kale waxaan doonayaa inaan idinla wadaago ummadda nabi maxamed qofkeeda ugu horeeya jannada ugu horgelaya waa abubakr asidiiq radia allahu canhu saaxiibkii nabigeeni suubanan salawaatu rabbi wasalaamu calayh waayo mar allaale waxaan cadaynaya xadiis ka mid ah xadiiskii nabigeeni suubanan salawaatu rabbi wasalaamu calayh nabi maxamed baa wuxuu leeyahy waxaa lay keenay buu yiri jibriil baa gacanta inta uu qabtay ayaa wuxuu i keenay buu yiri jannada albaabkeedii markaasuu i tusay buu yiri ummadayda halka ay albaabka ay ka geli doonta markaasaan abubakr wuxuu oga sheekeynayaa qisada abubakr baa wuxuu isagana jeclaystay inuu arko wuxuu nabi maxamed sal allahu calayhi wasalam soo arkay markaasuu isagoo u cishqaysan ama u hiloobay mandarka quruxda badan ee nabi maxamed sal allahu calayhi wasalam uu arkay ayaa wuxuu yiri nabi maxamed waxaan jeclaa sidoo kale inaan arke laakiin nabi maxamed wuxuu ugu abaalmarinaya wuxuu leeyahay waa loo bishaareynaya waxaa la oranaya abubakarow adiga miyaha adiga waxaad noqonaysaa qofka ugu horeeya ee ummadda nabi maxamed kamid ee jannada ugu horgelaya maasha allah yaa muuqaalka aadka u wanaagsan yaa ka fiican bishaarada aadka u wanaagsan yaaba ka wanaagsanba sidaa darteeda abubakr wuxuu noqonayaa ummadda nabi maxamed qofka ugu horeeya ee ummadda nabi maxamed kamid ah jannada geli doona sidoo kale wuxuu noqonayaa qofka ugu horeeya ee albaabiyada ama wuxuu noqonayaa qofka keliya ee 8 albaab ee jannadu leedahay looga yeerayo maasha allah albaabka sadaqada looga yeerayaa kii waxaa looga yeerayaa sanaada kii waxaa looga yeerayaa eeg marka albaabiyada 8 albaab ee jannadu leedahay intaba abubakr waa looga yeerayaa allah ilaahay subxaanahu watacaala nagu daro kuwa jannada galaya walaal jannada camal bay u baahan tahay ilaahay subxaanahu watacaala waa silcadiisii ugu qaalisanayd waa badeecadiisii ilaahay subxaanahu watacaala ama hantidiisii ugu qaalisanayd weeye ilaahayna wuxuu leeyahy إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فرصة إلهي سبحانه وتعالى وحكيب سذي مؤمنين إلهي سبحانه وتعالى وحنا نجا يبين يا جنة وحنا نجا يبسنا يا الله عمل ونكسن حولهنا أي إلهي سبحانه وتعالى نفتنا نجا يبسنا يا إلهي سبحانه وتعالى عملك ونكسن بنجا يبسنا يا ورهينا جنة تدوري سيد عملك ونكسن ربي أوجا كذا إلهي سبحانه وتعالى عملك ونكسن وحدا وجا يبسته جنة عمل ونكسن لك على قرآن آخر بدن صلاة بدن عبادة بدن خير بدن صدقة بدن
بارك الله فيكم مقال كان الشير كريه ولا الذي لو ذاك إلهي سبحانه وتعالى هايدين بركيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.